Love you, my baby. I love you, my baby. Love you, my baby. sheekadani waxaa nooga soo sheekaysay gabar joogta Kuuriya. sheekaduna waxay u dhacaysaa sida tan. markaan dhiganayay kollejka waxaan go'aansaday in aan la jiifto saaxiibaday aan isku kollejka ahayn. waan casheynay, xoogaa waan sheekaysanay, kadibna waan jiifanay. habeenkii saqdi dhexe markii la gaaray ayaa waxaa maqlay cod ka soo yeeraya dhinaca daaqadda, waxayna ila noqotay inuu taagan yahay qof daaqadda. laakiin sidaas muruguma isku sii gelinin, waana iska sii seexday. subaxdii markii la gaaray anigoo saaxiibtay la kaftamaya ayaa waxaa ku yidhi, saaxiib, xalay waxaan maqlay cod dhinaca daaqadda ka soo yeerayo. waxaan u malaynayay daaqadda inuu qof taagnaa oo aniga isoo fiirinayo, laakiin arrinkii sidii wuu iska bedelay. saaxiibteedu aad u baqayso oo dareynaysa ayaa hooyadeed wacday, waxayna ku tiri, hooyo, waxaan arkay saaxiibteedana way aragtay. anigoo naxsan ayaa waxaan ku yidhi, saaxiib, waxaan sheegayso ma fahmin ee maxay yihiin. kadib iyadoo ooynaysa ayay waxay igu tiri, qofkan aad sheegayso sidoo kale aniga waan arkaa, muddo 5 bilne sidan oo kale ayaan u arkayay. markastana waxaan isdhahaa qolkan ayaa qof ku jiro ee ka guur. qolal badan ayaan degay oo kala nooc ah, hoteelaha tir waan degay, laakiin dhibaatadan weli way i haysataa, ma ahan mid iga go'day. anigoo ka walwalsan saaxiibtay dhibaatada haysto ayaa waxaan ku yidhi, saaxiib, qolkaaga soo xir, caawa anigii imaw, qolkayga ayaa la jiifanaysaa. kadib iyadoo ooynaysa ayaa waxay ii sheegtay in aysan kaligeed aadi karin qolkaas, aysan soo xiri karin. sidaa darteed aniga ayaan soo raacay si aan qolka u soo xirno. run ahaantii markaan imaanay hoteelka, xataa aniga aad ayaan u baqay. meeshaan waxaan dareemay in ay wax zaa'id ay khaldan yihiin. markaan qolka soo galnay waxaan aragnay sidii saaka aan ugu tagnay inuusan ahayn qolka. qolkana aad ayuu u rafaadsanaa. isla markiiba aniga iyo saaxiibtay waan ka soo cararnay qolka, waana soo xirnay. markaan ka soo cararnay gurigay waxaan isku raacnay gurigayga si ay caawa ila joogto. wax badan waxaan ka fikiraynay birito waxaan samayn lahayn iyo sida ay gurigeeda ku aadi lahayd. laakiin weli anagoo xal u helin arrinkaa ayaan iska jiifanay. markaas subaxii soo kacay ayaan waxaa arkay kool badan oo hooyaday isoo wacday. kadib hooyaday ayaan wacay, waxaan ku idhi, hooy macaan, adiga isoo wacday ee maxaad iga rabtay? hooyaday waxay igu tiri, hooyo, xalay waxaan ku riyooday iyadoo qolkayga taagan yahay nin aad u dheer oo daaqadana soo fiirinayo. wuxuuna xirnaa dhar madow, wuxuuna dhahayay, sabab ay iyada guriga ugu jirtaa, sabab ii sheeg, sabab ay guriga ugu jirtaa. kadib aniga oo qeylinaya ayaan ku imaaday, waxaana dhahay, waryaha guriga maxaa ka rabtaa? laakiin wuu iisoo fiiriyey, isla markiina waxaan ka soo kacay riyadii. kadib hooyadii runta ayaan iskaga sheegay, waxaana ku dhahay, hooyo, waxaa ila jiifata xalay gabar aan isku kulejnahay oo saaxiibana aan nahay. saaxiibtay ma garanayo ilaa hadda dhibaatadan inay haysato iyo in kale. run ahaantii waxaan ugu duceynayaa in dhibaatadan ay ka fiicnaato. sheekadina halkaas ayay ku dhammaatay. iska ilaali, fadlan channelka subscribe saar, haddaa baaqdayna iga raali noqo. 또 기다려 널 call. 내가 포기하고 싶을 때 넌